munaasabadan oo ka dhacday xarunta wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa ujeedadeedu ahayd mid maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteeko ku wareejinayay wasaaraddaasi iyo mas'uuliyiin gaadiid loogu talagalay gurmadka iyo in lagu tacaalo dadka oo haleelo xanuunka COVID-19 iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu dalka ku soo badanayay xanuunkaasi dadku haleelayo madashan uu maayirku ku wareejinayay gaadiidkaasi ayaa waxa gooljoog ka ah xubno kamid ah gudida heer qaran ee ka hortagga xanuunka COVID-19 iyo gudida heer gobol ee gobolkan Maroodijeex xanuunkaasi agaasimaha arrimaha bulshada iyo bilicda dawladda hoose caasimadda Hargeysa Qadar Yuusuf Cali ayaa sharaxay gaadiidkaasi waxa farxad weyn oo ah in aan halkan dawladda hoose caasimadda iyo gudiga heer gobol iyo heer qaranba ay ku soo bandhigano gaadiid kala duwan oo runtii kor u qaadaya isla markaana loo diyaariyay inay ka qayb qaataan gurmadka xanuunka COVID-19 si hadaba loogu helo capacity gurmad oo dhameystiran oo ay iska kaashanayaan dawladda hoose caasimadda iyo wasaaradda caafimaadku halkan dawladda hoose Hargeysa ahaan waxaan halkan maanta ku soo bandhiganaa laba ambulance gaari loogu talagalay meydka u dhinta xanuunka COVID-19 oo runtii freezer leh awood u leh inuu runtii qaboojiye inta doona gaari kara isla markaana si fudud u dili kara waxyaalaha runtii sida bakteeriyada iyo viruska iyo wixii la mid ahba xogayaha fulinta dawladda hoose caasimadda Hargeysa mudane Axmed Yunis Juxa iyo barasaabka gobolka Maroodijeex ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay gaadiidkan ay dawladda hoose caasimadda Hargeysa ay ku wareejinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland halkan farxad weyn maanta noo ah waa qaybtii labaad ee gurmadka aanu kaga qayb galno dawladda hoose ahaan dawladda hoose Hargeysa gaadiidkani maakii u horeeyay oo groupkii labaad ee aanu kaga qayb qaadano waxa aad u sharaxay oo halkan ugu mahadnaqay agaasimaha arrimaha bulshada muhiimadda ugu weynina waxa weeye gaariga freezerka oo lagu qaadi doono dadka u dhinta xanuunkan ilaahay inoo teesire qalabkani runtii waa qalab aad iyo aad loogu baahnaa waqtigii loo baahnaa la diyaariyay wax weyn ka taraya gurmadka caafimaadka ee gobolka Maroodijeex aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maayirka caasimadda iyo howlwadeennada dawladda xogayaha dawladda hoose iyo agaasimaha bilicda caasimadda runtii qalabkani waa qalab aad iyo aad u muhiim ah oo tusaale fiican oo ah dhammaan dawladaha hoose ee dalka oo dhan waan idinka mahadnaqaynaa waana runtii qalab aad iyo aad loogu baahnaa maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidi Solteeko iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa iyaguna fariimo kala duwan u diray dadweynaha oo la xiriira xanuunka COVID-19 isla markaana ka hadlay gaadiidkan ay dawladda hoose caasimadda Hargeysa ay ku wareejinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa laga yaabaa tusaale ahaan degmooyinka amba 16 Juun amba Maxamuud Hayba amba Axmed Dhagax iyo markaynu soo qaadnay gacan libaax inay dadku aad ugu dhadhow runtii waxa laga yaabaa hadii dadku taxaddar sameyn waayaan inay noqoto inay dhibaato badan timaado waxaanu leenahay dadka kala fogaada haday suuqyadii tahay waxa weeye baritoole go'aan ka soo saari doonaa halka wax lagu iibinayo shaqaalihii dawladda hoose oo loo tababaray aasidii meydka iyo qoladii qaybta caafimaadka oo la shaqeyn doonta kuna shaqeyn doonta shuruucda iyo qawaaniinta iyo qaabka ay dhigto in qofka loo qaadayo ilaa qofka dhintasa loo aasayo sida hore la socoteen oo qalabkii iyo wixii ay wasaaradda caafimaadku keentay hadda maanta waxaanu shaacinay 6 xaaladood cusub oo positive ah oo mid kamid ilaaw naxariistay oo shalay toole geeriyooday oo waliba caasimadda qalabka imiga arkana laga howlgalay oo aaskiisii ay qayb ka qaateen wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha loo tababaray ka socda dawladda hoose oo sidii waafaqsaneyd shuruucda iyo habraaca caafimaadka loo Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa.